نغرق في النوم ونسهر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا run ahaantii qof kasto inaga naga midi waxbuu higsanaya qof kasto inaga naga midina waxba tilmaameed ah oo wuxuu rabaa inuu ka daba tago mashruuciisa uu fuliyo wana sida lagu yaqaan qof kasto muslima oo ilaahay u leeyahay fahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un waxaad moodeen goortii lidin abuuray ama sababta laydin abuuray inay uun tahay uun kaliya inaad ciyaartaan kadibna aan meesha xisaab aanu jirin haddaba waxaan rabnaa inaan fahamno manhaju salaf hadi al-umma fima yakhussu bi hada al-bab waxa laga soo xigtay Abdullah ibn Mas'ud qawl mashhur oo maantana aan tilmaamay inuu yiri inni la amqatu ar-rajula an ara aw inni la amqat an ana ar-rajula farigan runtii aad bay ii dhibaysaa waana ka caroonaya inaan arko nin dhalinyaro ah waxba aanan hayn nin iska socda ee subaxii markuu soo tooso ku mashquulsan un kaliya dharka soo u xiran lahaa maqaahida fariista iska sheekeeya ee daldalma ilaa waaga uu runtii uu markaa noocan ma qorraxda ay ka dhacdo guriga taga haddana telefishin hor fariista ee 24 saac koox kadibna aad moodid ma aragtay xaas arbaca dhintay oo kale intuu dhaco wuxuu soo toosay haddana subaxii kale wuxuu yiri ma jecel inaan arko مقولة لمذا وحلقة سحكتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرمر كان أركنين لليراء وإلهي سبحانه وتعالى وأبوري وكو أبوري أود يفر فرعوني النشاط مركان أركو واللي يرى هذا نينك كان وحام ما قبته وح بروفيشنال مالها in his life وحقبته مالها ونول يا ونسدتك ونولهين وحير سقط من عيني إنه يكدعه بمعنى وامح قفك السوء إنك النجمذا وكلام إنه كده حجرة نلاش وإنه مال إنه كجرة خاند إنه كجرة وإن البوس تاجنت وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله قفك السوء إنك النجم إذا وح أصله إنه دغدغاقه ولذلك وحي دهري وما سمي الناس ناسا إلا لأنهم يتحركون قفك بين آدم كوحا الناس إلا لغنوه مقعبه الناس برب الناس وحل نويري الناس محايلة دغدغاقه إذن نلاشينا وحي تهي ديناميكية حركية ميديو دغدغاقه شغله قف مال ستيل اسكاه موشنلس وحبا انا نولشي كسو كردينين تاريخ ما ينقون كو مشروعي محو كبلابانيا I should have a dream يجب ان يكون لدي حلم وان وحون كل رياضه aspiration وان لا طموح وان لا يعني بمعنى ننكسو ان نغميدا مال بو طموح او تاغين هدا هدي ميكروفون كان ليسو ديبو قول لي هذا وامحي وحا كفكريس المستقبل كاي وامحي وحا اد يديشانيس المستقبل اهان هيكسيغا محويه نين والبو انغا نغميدا ميل باي تاغنت ميد با ميل ساره كفكري ميد با هيمديسو اني دافسيسنين دولكا اي ميشا او فديو ميد باي مدخيسو اني دافسيسنين ددكو كلا دويه ولله وفي خلقه شؤون ارن كلا وحو يحي النبي صلى الله عليه وسلم انه يري إن الله يحب معالي الأمور إلى وحي جعلها وحيابها وصل سرية شيء والبابا مركات كولج كديجانيس وأنا كيف فكرتها A مركات الجامعة تكتب درجة وصل وأنا كيف فكرتها business بعد قبنا يصنع the most perfected business وأنو النقطة متك أجو رنتي باريس هدف كا وأنو النقطة هول بعد قبنا يصنع إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إنه ما والله قبتال وما قبته waxba la bartaa looma barto shay walba marka qabanayso waxa la rabaa meesha ugu dambaysa perfection oo shayga ugu sareeyo qofka muslimka inuu qabtaa ninka daayarta haduu ka fakaro perfection oo wixii kaanay ummadii inaga naga horeeyay dadkii inaga naga horeeyay wala jeedaa predecessorska salfa hadi umma inay noocan ma hogaanka ay u qabtaan wax alla wixii khayra yurubtan maanta aad arkaysaana ay hoos harsato wax alla wixii xadaara ah ay ilbaxnima nimanka didbada waaseen ولذلك أرى سلف هذه الأمة فهم كود وحال عظيم معلومة ما كمدة شقيق ابن إبراهيم البلخي واني زاهد أو الدنيا لا شقاكم على هاي وهنا كمدة أحد شيوخ الصوفية رجي وويناء تصوف كلا يقين إن الدنيا لا نعه آخر أن لسكال الله ذي وروح بدنها واجا يقول لك كل مي إبراهيم بن أدهم ما كو كلا قرن
ibraahim baa su'aal weydiiyey wuxuu yidhi warniyahow maxaa sidan kuu dhigay yacni waxaan ku arkaa in adduunyada dhamma shaqada aan ku lahayn waad 24 saac ku mashquulsan tahay masjidkaad ka bixi la'adahay warniyahow dharkan jeexjeexan iyo howlahan maxaa ku geliyey markaasuu wuxuu niyow maalin maalmaha ka mid anoo meel fadhiyaan waxaan arkay buu yidhi shimbirka waxaan arkay buu yidhi isagoo labada garbood garab ka jabay shimbir kale ee fayow ayaa u yimid afku wuxuu ugu soo qaaday wuxuu cuno ayax buu ugu soo qaaday kadib wuxuu yidhi maalinkaa markaan ogaaday shimbirkaa jabay ee meel yaal ee kabniinka u baahan inuu u soo gurmaday shimbir kale oo logistic u keenay oo ayax u keenay baa waxaan ogaaday anuu meeshayda fadhiyay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala arzuqi karo oo waxaan ku daba faylay oo aan ku dayday shimbirkaa jabay oo garab jabay oo meel fadhiyay ibraahim baa su'aashu ku celiyay wuxuu yidhi niyo maxaa ugu fakari weyday in shimbirkii wanaagsanaa ee caafimaadka qabay ee ayaxa soo qaaday inaad adiga noqotid maxaa uga fakari weyday oo maxaad ugu fakartay inaad noqotid shimbirkii loo gurmanayay soo nabiga ma dhihin alyadu alculyaa khayrun min alyadi sufla gacanta sarraysaa waxay ka khayr badan tahay gacanta hoosaysa halkii aad adiga gacan hoorsan lahayd dawarsan lahayd tuugtami lahayd baryootami lahayd wax laguu tuuri lahaa maxay adigu gacantaada wax u bixin weyday oo ninka aad u noqon weyday kan wax bixiya markaasuu yidhi wallahi haddaan fahmay intuu istaagay wariya abaa isxaaq anta ustaaduna markaasuu gacanta ka dhunkada